magaalada Jigjiga waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimisan geeskan Afrika isla mar ahaantaana ugu mustaqbalka wanaagsan. Jigjiga waxay ku taalaa silsilada buuraha Gurays Karamadha waxayna u dhaxaysaa dekeda Berbera oo ay u jirtaa 320 kilomitir halka caasimadda dalka Addis Ababana ay u jirto 630 kilomitir. magaca Jigjiga waxaa lagu sheegaa inuu ka soo jeedo shanqarta jugjug waxayna shanqartaasi ka imaan jirtay ceelal laasas ah oo fara badan oo laga qoday togog iyo waadiyaal mari jiray magaalada hareeraheeda isla mar ahaantaana haatan ku yaala magaalada bartankeeda maadaama oo dhulku ahaa dhul carramadow ama dhoobay ahna ceelashu waa ay dumi jireen shanqar daryaan ah oo fara badanna waa ay lahaayeen oraantii magacan Jigjigana waxaa loo yaqaanay magaalada Laaca magacan Laaca waxaad ka turjumanaysaa inay meeshu ahayd meel aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. Jigjiga waa dhul carrasan ah oo deegaanka ku wanaagsan isla markaana leh muhiimad ganacsi. Taasina waxay keentay inay xoogag fara badan ku hardamaan. waxaana magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda ka talin jiray garaad xirsi garaad Faarax Wiilwaal. Garaadka iyo qoyskiisu waxay ku xirnaan jireen amiiradii ka talin jiray Herar. safarada ka imaanaya ama u socda Berbera waxay sii mari jireen deegaanka uu ka taliya garaadku taasina garaadka waxay ka dhigtay saaxiib aan laga maarmi karin iyo waliba cadow khatartiisa leh 1887 markii ay ciidamadii boqor Mililik qabsadeen Herar isla mar ahaantaana ay jabiyeen xogagii amiirada ayay la ahaatay inuu qabsado dhulkii Soomaalida ee Herar dariska la ahaa sidaas ayaana gudoomiyihii cusbaa ee loo magacaabay Herar Ras Mukanan 1890 uu ku qabsaday magaalada Jigjiga dabadeedna waxa gudoomiye looga dhigay nin ganacsade Carab ah lana oran jiray Cabdalla Daha. waxaan oo wanaagsan daawadayaal haddii aan intaasi kaga soo gudubno qadarkaasi hordhaca ah waxaan rabnaa Aadan Maxamed Xasan Aadan Cagayare oo ah waaya arag oday dhaqameed kamid ah odayaasha reer Jigjiga wax badan uga soo joogay duruufaha ay Jigjiga leedahay kana mid ah dadkii maxaabiista ahaa ee dhibka faraha badan ku soo mutay jeel ogaadeen inuu inoo taataabto waxyaabaha uu ka xasuusto taariikhda magaaladan Jigjiga iyo waayaha kala duwanaa. أبي ونحسن جيجيا وحاوية تاريخ بلادها مدة bay Jigjiga dhisnay Jigjiga waxay ahayd ceel ka dumi jiray ceel ka Jigjiga lagu bixiyay ceel ka Jigjiga oo aadiya la hadwaay hore dumi jiray Jigjiga lagu bixiyay waxay ahayd taariikh istaba joog oo xukunkeedu dhibaato kol waxay Ingiriiska xukumi jiray kol waxa xukumi jiray Hayle Salaase oo muddo dheer xukumi jiray haddana waxa ku xigay xukunkii dargigii oo 17 sano meelaha dhulka xukumi jiray haddana waxa ku xigay xukunkii dhibka badnaa ee Tigrayga ee la TPLF oo isagu dadka si aan weligeed la arag oo la maqal u galay una adeegsaday cadow hadii la dadka ka dhashay saasay Jigjiga ku ahay Jigjiga dadku uu ka jabay uu ka cararay jeelashu ku baqbaqtiyay dhibaatooyin aan laga sheekeyn karin baa Jigjiga soo maray. Jigjiga run ahaantii waxay soo martay marxalado aad u fara badan maantana waji bay ku jirtaa. Jigjiga xillima waqti taariikh intee la eegay hadda caasimadda waddankan tahay caasimadda intii hadda 27 ilaa 26 intii ay soo galay nimankii loo oran jiray Tigrayga ee xukunka la qaybsay Itoobiya ee hadii ilaahay kililada la qaybiyay bay caasimad noqotay kolka horena gobol weyn bay ahayd oo Jigjiga la yiraahdo inta caasimaddu inta weey hadda. Okay Jigjiga bal dabeecadaheeda magaalo walba waxbay caan ku tahay magaalo bad bay caan ku tahay magaalo wabiyaal bay caan ku tahay magaalo qabow bay caan ku noqon magaalo qorrax kuleel bay caan ku noqon marka magaaladu waxay yeelataa tilmaan ama xagga cimilada ah ama xagga astaanta ah oo iyada gaar u ah Jigjiga maxaa astaan oo ilaahay waxa beeraha astaan u ah qabow ziyaadana way lahaan jirta hadda way leedahay laakiin Jigjiga waxa lagu xusuustaa beeraha oo beeraley weeye Jigjiga sideedaba beeraha un bay ku shaqaysaa waa dhul dad xoogsata oo beeraley weeye Jigjiga waxay ku taalaa ama ay dhacdaa dhul beereed ban oo wabiyaal maraan oo beeraha laga tabcado wabi maray tog baa mara jarar la yiraahdo meel faafan la yiraahdo way ku dhowdahay waa beeraley Jigjiga waxay ku magac bixisay beeraley aad iyo aad ayaad u mahadsantahay adeer Aadan Cagayare daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna qadarkii aan ku fiirinaynay taariikhda magaalada Jigjiga oo kooban anigoo Afkaadha Maxamed Axmedna waan idin la socodsiinayaa tan iyo intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.